kulankan ay maantay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa ahaa kala fadhigii afraad kulankiisii 36aad ee mudanayaasha baarlamaanka waxaa shirgudoon ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Caawad iyadoona madasha kulanka ay soo xaadireen in ka badan 100 xildhibaan ajandaha kulanka ayaa ahaa u codeynta iyo dhageysiga tala soo jeedinta guddiga xeroosaadka iyo wax ka bedelka ee baarlamaanka iyo hadal jeedinta gudoonka ee la xiriirta maamuuska xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kaas oo dhawaan akademiyad ku taala dalkaas Talyaaniga ay gudoonsiisay bilad ugu horeyntii gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka furay ayaa ugu hambaliyay Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka biladii dhawaan ay gudoonsiisay akademiyad ku taala dalkaas Talyaaniga isla markaana hadda u sharaxan abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize-ka waxaa kaloo inoo sharaf amaanta sharaf weyn u ah baarlamaanka Soomaaliyeed go'aan soo jeedin ah ayaa iga soo gaaray waxaa wadad iga soo gaaray akademiyada caalamiga ee Giuseppe Petri la Accademia Internazionale Giuseppe Petri oo ku yaala Palermo Italia waxaa soo gaaray Accademia Internazionale Giuseppe Petri oo Palermo Italia ku taalo oo abaalmarin siisay xildhibaan mudane Professor Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle oo ay ku maamuseen jaa'iso khaas ah oo akademiyadaas kale waxaa kaloo ay waxaa kaloo sameeyeen magacaabin ay ku magacaabeen in doktorka soo sheegay Dr. Dufle lagu maamuuso Nobel Prize in la siiyo warqadaasi oo aftalyaani ku qoran markii hore laakiin Soomaaliya inuu noqonayso sida soo socda inta afriyo waxay warqada ku socotaa doktorka kadib markii aan aragnay oo aan ka baahan degnay saraynta tayada damiirkaaga mudnaanta tacliintaada sare iyo howlgallada aadaminimada oo aad mihnadaada dhakhtarnimo ugu fulisay shacbiga Soomaaliyeed sharafta ayadaa mahad ballaaran magaca golaha lagu jeeday ayay la muuqataa haddii ay isku wadaan sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa ugu hambaliyay xildhibaan Maxamed Maxamuud Dufle abaalmarinta caalamiga ee la gudoonsiiyay iyo midda uu hadda u sharaxan yahayba ee Nobel Peace Prize-ka ah waxaa intaan sharaf weyn maanta in aan halkan uga tahniyadeeyo walaalkay saaxiibkay Dr. Dufle gudoomiye sidii uu horey u sheegay jawaankii horreeyay Xuseen Carab waxaan la qabaa bogaadinta Dr. Dufle oo runtii ah xildhibaan mutaystay jaaisada ay siisay akademiyada caalamiga ah ee Giuseppe Petri oo isleeyahay aad iyo aad uga mahadceliyo oo markhaati ka ah Dr. Cismaan Dufle shaqadii dalkan uu ka qabtay Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle oo ah gudoomiyaha guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya oo isna kulanka hadal kooban ka jeediyay ayaa uga mahadceliyay gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka sida ay u dhiirigeliyeen isla markaana waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay helidda abaalmarinta caalamiga ee Nobel Prize-ka taas oo iminka u sharaxan yahay isla markaana la filayo in bisha koowaad ee sanada soo aadan lagu bixiyo magaalada Oslo ee dalkaasi Norway gabagabadii kulanka waxaa soo xiray gudoonka baarlamaanka kaas oo sheegay in maalinta Isniinta ay soo aadan la ansixin doono xeroosaadka baarlamaanka isagoona mudanayaasha ku booriyay in ay soo xaadiraan shirkaasi Maxamed Bilagele Somsa TV